qaban qaabada horta waa barnaamij mugtay waa 3 sheekadu markay dhamaatay waxay ku baahan doontaa baarlamaanku inuu codeeyo gacanta la taagi doonaa kadib waxay noo soo bixi doontaa natiijada ugu dambaysa iyo meesha loo batay marka dood cilmiyeedku khulaasada ama gunaanadka qaban qaabasho waxaan ka codsanayaa inay la wadaagaan dadweynaha ama jaamaahirta ka soo qayb galay sida ay u dhacaysana markaan siira qiyaasay waxay shacabku u badan yahay in la isku wadi karo marka laakiin codkay ka soo bixi doontaa hadhow markii la codeeyo gacanta taaga inta qabta markii la yiraahdo ayay ka soo bixi doontaa ka hor dhici maayo natiijada ficlan horta meesha waxa yaalo waxay tahay hawsha taala dooda dhageysanayseen waa dood qof walba yani macquulnimada arinta ay tahay uu sheegayaa waana wax jira labadaba laakiin waxa isweydiin leh yani qaarna dib ayaa jira ayaa leeyahay hadii la isku wado waxbarashada iyo guurka culays ka badan hadii aan la isku wadin ayaa meesha ku jira waa inta on marka halkaas waxa imaanaysa marka dadku laba un bay noqonayaan qof u bareeraya meesha adag sidana waxa la yiraahdaa dheef ayaa loo yeero waxa la dheef markii loo yeeray dib gadaashiis ay hoob ka tiri marka sida isku ogyahay waxay tahay meesha adayga uu jira ayaa la doortaa markii ummad laga hadlaayo hogaankeeda iyo meesha loo socdo ninkii shaacirkaana wuxuu yiri ida qaamarta fi sharafin maruumin fala taqna bima duna an-nujumi fad'am al-maut fi amrin haqirin كضعم الموت في أمر عظيم يعني هذا هو القبسانيسو ماشي ugu sareysa qabso adiga maxaa yeelay kulli adduunkan lama joogaaye dhimashaada ma iswaal dhimanaya laakiin qofna asoo ku shirin isbaar dhiganaya ayaa lagu dilayaa oo ku shirin u dhintay qofna asoo ummadiisa dhisaya ayuu dhimanaya dhimashadu waa mid laakiin meesha lagu dhintay ayaa kala duwan marka meeshan yani markii laga hadlayo xagga adayga iyo xaggaas waa in la doorto xagga adayga oo isku wadka ayaa adayga uu ku jiraa xagga kalena in loo tafarruqo waxbarashada oo wixii mashquuliyada oo qofku ka celinaya uu yani iska yareeyo ayadana waa arrin jirto waa aragti la qabo imaam shaafici ayaa waxa hadaladiisa kamid ah wuxuu yiri law kulliftu basala ma hasaltu mas'ala hadii la igu kallifi lahaa oo la idiri lahaa hal basal ah soo shaqeeyo hal basal meel ka keen ما حصلت مسألة هل مسألة ما أنا تحصيليا ما أنا قرين يعني هو متفرق للعلم أيوها علم أيوه تفرقي إمام نووي أو تقانان دوري أفضل أيوه كل انتي أسون جورسين أيوه انتي علم وكتير ما أركيسان مركا فضل بقيت تغير هذا يمبادي هذا أي لا هاي يعني أنا كل يوم حنقصه جوجنا ويجي تعرف تاسو أرضية الإحدى وكتبتها أنا أحب رشاد السودان أي هاي السودان حنقصه برتي وحب دورها من السودان gaar ahaan gabdhaha marka la joogo oo kale oo ilaa waxay jecel yihiin ay digriga ugu dambeeyo oo PhD-ga ay qaataan markaas kuwaas yara dhaliilaya oo dhahayo waqtigoodin dhaafay sida Soomaalidu bay dhahdo cimriga gabadhu uu kooban yahay laakiin kan ninku waxa laga yaabaa inuu muddo sii jiro inta haddaan laga faa'iideysan fursadii waqtiga ayaa ka tagaya ya waxay dhahayaan haddaad waxbarashada sii wado oo ilaa doctorate PhD waad qaadatay waad dhamaysay kadib guurku u imaado adigu xilliga aad joogto iyo daadana way dheeraanaysaa markaas waxay dhahan shahaadooyinka aad qaadatay darbiyada ayaa lagu sharxaa markaas waxay dhahan marka darbiga hadii PhD iyo masterkii iyo waxa dhan darbiga lagu dhijiyay shahaadadaasi hadhow marka duqowdo sariirta marka soo dejinayso marka shahaadada sariirta wixii ka soo dejin lahay ayaa loo baahan yahay almuhim waa dood aad u qiimo badan oo saas ah يعني حاسلين وحد يجمعوا قناة سدنا أنا موجودة أنا لبضة أي هوشة أي قرطة أي ليه لكن هذا مركي لبضة أشياءه وحاجة تمال الله جنجاره أنا إذا لان لقبانية مركي وحواية محايا لي وحبرشدين ويودا عروس كذين وانجوبي مركي ساس درادة هنا هوشة نجاح يجرت واساس أنا يقول أستاذ وكلنا أها أنا يقول جامعات عم بلعبين أيام كورسدي أنا جامعة دقيقة أيام المدلي يرانتك كورسي وحكوا في عيني ولا الكسلان نقنة مركز على فايدة سواء ما سنتي أذوق بلو وحكوا ما يستلموا يسدي أي مشروع واساس
hadda adigu bilowdo dadku way arkayaan way kugu dhammaystirayaan way kugu soo biirayaan laakiin bilowga hore marka waa fikrad fiican oo gurisamo ay wado oo ay ugu talagashay in dadkaas hawshaas loogu qabto dabcan geedii iyo asxaabtiisa iyo anigoo maalinkii la soo aasaasaya ilaa hadda gurisamo qayb ka ah oo muxaadarooyinka iyo wixii ku saabsanna yani wixii tala ah iyo waa hawshaas waan wada qabanaynaa marka waxaa la rabaa bal horta Soomaali arrintan way inagu cusub tahay dadka baahida gaarka ah qaba inaan wax u diyaarino waa arrin aan bilowga hore ku bilaabayno saas markii la yiraahdana markaad adigu walaalka aad u kaalmayso oo wax bilowdo adna way ku iimaaneen dhalinyarada kale ee macnaha oo ayagana saas oo kale ah waxaan dhahaynaa face 2ga wanka kaas markaan ka dhigno oo la isbarto oo war dadkan hawlay qabanayaan saas ay noqoto waxa laga yaabaa baahida gaarka ah inta qabto intii laga bato faa'iido uu soo haro haddana in la yiraahdo yaa ku soo xiga oo la yiraahdo مثلا dad waxa jira shaqaysta مثلا oo ama مثلا waxoogaa yar oo lacag ah oo yani uu wax ku biilan karo uu haystaa laakiin taklifada hore ee hal mar aan isugu aadanin oo wixii sariiraha lagu gadi lahaa iyo wixii laakiin haddii oo intaas la dhaafiyo waa baawur yar oo bacaad ku jira wax yar oo wuxuu u baahan yahay marka bacaadka ka bixiya marka inta bacaadka in laga bixiyo u baahan ayaan bacaadka ka bixinaynaa kadibna ayaga ayaa baawurkooda sii wadanaya marka taasna u diyaar garooba idinkana yani dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba arrintaasi yani halaga qayb qaato لأنه حالي مكتوب أدب كنا Soomaaliga ama suugaanta qofka curyaanka ah waxa mugtay cagal looma waayini caynkaas waxa loo yiri kuwa carray inay ku cibra qaataan Soomaa marka waxa qofkan in dhoolaha ama curyaanka ah dareenkii uu qaba dadkuna inta badan dadkaas aad yani ihtimaam uma siiyaan baahidoodina way jirtaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhihi jiray ani haddaad isoo raadinaysaan oo xaguu joogaa nabiga dhaysiin dadka tabarta daran dhexdooda iga soo raadiya ee dadka waaweyn iyo ma ahayn dadka tabarta daran xadiis nabiga wuxuu ku sallallahu alayhi wasallam hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum mal idin gargaaraya rizqi mal idin siinaya illa kaalmaynta aad kaalmaynaysaan dadkiina tabarta daran safar markii la yahayna wuxuu dhihi jiray ad-daciifu amiilu rakbi qofka uu tabarta daran ayaa dadka lagu jaangoynaya socodkooda ee midka xooga badan kuma jaangoynayo marka inaan halka ka soo bilowno oo yaa inoogu tabar daran oo duruuftaana ay haysaa oo marka hore faatixatu khayr aan barnaamijka oo dhignaa marka dambe oo dadku ay bartaan inay wax la qabsan karo oo qoysaskii yani saasna la isku sii dabadaartaa marka runtii guurku uu fiican yahay ummada dhismaysa ana waxaan soo diyaarinayaa hadda intii aan isku meheriyay ama hado hoolkan ama hoolal kale doorasho markii la gaaro ayaga laan ka bilaabo codka inay siiyaan marka ayaga tirada ka batay marka codadka soo socda waxa lagu tartami doonaa qoysaska la dhisay iyo dadku yani ka imaaday marka wax la maal gashado beer waad aragteen wal maal gashtaa laakiin waxa ka fiican wax la maal gashado bini aadamka iyo dad hadaad hesho xoolo kas waad helaysaa marka dad si aan u maal gashanaa ayay barnaamijkeenu Guryasamo oo ku saabsan yahay maal gashigaas oo bini aadam lagu soo saarayo warshad hadii la hadda maanta waa la furaaya oo yaa isqoraayo oo share ku yeelanaya bishiina faa'iidooyinkaas ka imaanaysa waxa dhici karta dadku inay ku soo ordaano faa'iidaas ay raadiyaan laakiin maanta inna waxaan dhisaynaa oo diyaarinaynaa warshad bini aadam soo saarta ayaan rabnaa in la maal gashto marka warshadaas bini aadamka soo saaraysa maal gashigeedu wax walba uu ka qaalisan yahay dabcan mid kale ku saabsan oo ah hadda la sameeyo hadana bari hadda isfuraan kuwa hadda caadiga isu guursaday ee Guryasamo isu guurininba kuwa isfurana way jiraan kuwa aan isfurina wada joogana way jiraan wixii taas ku saabsan waa qof iyo xigmadiisa iyo sidoo u dhaqmaayo marka taasi wax la damaanad qaadi oo yani la dhihi karo ana ballan qaadayo dadkaas waxba kama imaan doono taas ma dhihi karno sida dadku dhan ay wada furan tahay inuu wax ka imaado ayaa bini aadamkaas wax uga imaanaya inay hagaagto oo fiicnaatana waa sidaan rabno wayna fiicnaan karaan waxna uu ka soo noqon karaa nolosha dhan ayaa saa ku wada xiran marka waxba yaan laga cabsanin haday saa noqoto ama ay taasna ka imaataa inaga taas dambe la inooma dirin amal iyo shaqaale inoo diray wa natiijatu ala Allah hadaan shaqayno oo wax qurux badan aan keeno oo marka horeba aan ka ilaalino yani wixii fashilin lahaa oo aan meel wax u saarno oo wax isku hagaajiyo system wanaagsan aan marka horeba aan fariisino waxa la filayaa marka dambe inuu mira dhal noqon doono oo laga faa'iido doono marka soo dhawaada hadan intaydan bixin qof walba wuxuu ku tuuri karo lambaradaas $100 ku tuuri kara si aan u dhahno way bilaabatay oo marka doctor sana telefoonka iyo wixii ugu dhacaayana dhalawda inta iga maqashiya
وما هسنتين صوت دعايا وأنا ماشي كصوم وقت وما هسنتين السلام عليكم ورحمة الله